آه، أستاذ waxaan kaa rabaa badanaa maxay ahayd browserkaada oo Chrome-ka ma aragti horta waxaa hubisaa inuu internet leeyahay computerkaada hadduu computerkaada internet lahayn wax kuu shaqeynaa ma leh computerkaada inuu internet leeyahay hubi tan xigto browserkaada oo maxay ahayd Chrome-ka waxaa suubisaa defaultiga kusoo celi haddii maxay ahayd halkan xabo kale uu qoraal saan uu kuu soo bixi waayo meesha pluska ku qoran tahay fur mid kala fiiri internet horta waa inuu kuu shaqeeyaa haddii internetka xataa maxay ahayd proxy reference is refusing connection waxaas hadduu ku dhawayo uu internetka uu kuu diidan yahay maxay ahayd waxaa suubisaa mid kale plus iska dheh saddexdan dhibcood ugu joodaa inta fur inta markaa furtid setting meesha ku qoran tahay ku dhufo then waxaa suubisaa marka meeshaan ay ku qoran tahay hoos usoo siko hoos markaa usoo sikoto hoos usoo siko weliga meesha ugu hooseyso imow meeshaan ay ku qoran tahay network setting ugu joodaa ku dhufo network setting meesha ku qoran tahay u dhufo meeshaan ay ku qoran tahay use proxy setting ay ku qoran tahay ya waxay ku tahay 127.0.0.1 ma fahant waxaan ka soo dhignay bab suite marka isticmaalayna ka soo dhignay marka hubi marka inay saan ku tahay sababtoo ah waxa isticmaali doontaa nisaskana waa u isticmaali doonaa waa u baahannahay marka intaan certificate-kan iska sax oo kaliya understand meeshaan iska saxaysaa marka cashirkana marka inta marka iska saxda marka nisaskana marka la suubinayo ama marka maxay ahayd la suubinayo codingka aan qorayno iyo steps-ka aan marayno si deganaan u mar saas yeel insha Allah taala everything markaas way ku hagaagaysaa haduu Ilaahay yiraahdo marka halkaan saan meeshaan saan isaga sax tusaale ahaan oo kaleeto use meeshaan tika ku saarnaato proxy setting halkaan ha kugu qornaato 127.0.1 bot 88 ha ku ahaato HT proxy-ga sidoo kale wax walba saddexdan xabo say yihiin meesha ugu dambeysay mawjooda ayadana meeshaan ugu dambeysay 127.0.1 ku ahaato marka network setting kan iska sax saas yeel insha Allah taala khayr badan oo ku rajayna